xiisad u dhaxaysa ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland ayaa waxa ay ka taagan tahay koonfurta gobolka Sanaag. Cumar Maxamed Soomana ayaa mar kale warkan inoo faahfaahinaya. wararka saaka laga helayo deegaanka Damala Xarage oo kamid ah deegaanada ku yaala koonfurta gobolka Sanaag ayaa lagu soo waramayaa in laga dareemayo saansaan colaadeed. xiisada colaadda ka taagan deegaanka ayaa waxa ay u dhaxaysaa ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland kadib markii ciidamada Somaliland ay shalay weerar dhabagal ah ay ku qaadeen wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada maamulka Puntland oo safar socdaal ku maraya deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sanaag. wararka ayaa sheegaya in saaka cabsi ay ka jirto deegaanka Damala Xarage waxaana dadka deegaanka ay ka baqdin qabaan in ciidamada Puntland iyo Somaliland uu dagaal ku dhexmaro deegaankaasi maadaama dhinacyada halkaasi ku dagaalamayo ay deegaanka isku hor fadhiyaan. si kastaba ha ahaatee dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Damala Xarage ee koonfurta gobolka Sanaag ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaartay ciidamada Puntland iyo Somaliland balse ma muuqato ilaa ay iminka waan la doonayo in lagu kala dhexgalo ciidamada Puntland iyo Somaliland kuwaas oo saansaantooda saaka ay ka taagan tahay deegaanka Damala Xarage.